shirkan jaraa'id ee ay soo qaban qaabisay hay'adda culimada Soomaaliyeed ayaa ujeedkiisu ahaa sidii loogu gurman lahaa dadka Soomaaliyeed ee ay saameysay abaaraha ka jira dalka waxaana ka soo qayb galay shirkan jaraa'id gudoomiyaha culimada Soomaaliyeed Sheekh Bashiir Ahmed Salaad iyo xubno ka tirsan hay'adda culimada Soomaaliyeed ugu horreyn waxa ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka hay'adda culimada Soomaaliyeed Sheekh Nuur Baaruud Gurxan isagoo oo madasha ka sheegay in la iscafiyo iyo in la tukado salaada roobtoonta ilaahayna loo noqdo lacag hadii la kala haystay la isu celiyo wax walba dulmi ah oo fasaad ah oo la kala qabo in la isu celiyo saddex maalmood in la soomo maalinta afraad dadkii oo sooman banaanka ay u baxaan oo sidaas ilaahay lagu bariyo oo salaada loo tukado oo waliba salaada lagu celceliyo inta roobka uu ka imanayo taa guud ahaan gobolada dalka ay abaaruhu ka jiraan iyo wadanka oo dhanba waanu jeedinayaa xataa meelaha aan hadda dhibaatada weyni ka jirin way salaatul istisqa way tukan karaan ayagoo dadka walaalahooda oo abaartu ay hayso oo la niyoonay inuu ilaahay dhibaatada ka qaado intaa kadib waxaan rabaa hadalkaas inaan ku sii qabo abaarta iyo dhibaatada iyo xanuunka maxaa keenaya waa ganaax ilaah waa dunuubtu markay badato oo ilaahay la caasiyo oo macsiyadu badato ayay imanaysaa taasi wamaa asaabakum min musiibatin fabimaa kasabat aydiikum wayacfu can katiir yacni wixii dhibaato oo idinku dhaca waxaa weeye waxay gacmihiinu lay kasbadeen waa waxaad idinku la timaadeen weliba ilaahay wax badan buu iska dhaafayaa gabagabadii ayaa khudbad kooban soo jeediyay gudoomiyaha hay'adda culimada Soomaaliyeed Sheekh Bashiir Ahmed Salaad waxaana uu baaq u diray ganacsatada Soomaaliyeed iyo hay'adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga ah in ay gargaar degdeg ah la gaadhaan dadka dhibaataysan ee Soomaaliyeed. Alxamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam ba'd baaqa hay'adda culimada Soomaaliyeed ee ku aadan abaaraha deegaanada ummadda Soomaaliyeed waxaa ka jira abaaro baahsan haba u darnaato Somaliland Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu kaalmaynayaa qofka inta uu kaalmaynayo walaalihiisa baahan waxaan ugu baaqaynaa hay'adaha dawliga kuwa islaamka dunida carabta inay si degdeg ah ugu soo gurmadaan shacabka Soomaaliyeed ayadoo lala tashanayo sidoo kale waxaan ugu baaqaynaa warbaahinta inay gutaan kaalintooda kaga aadan soo bandhigidda iyo muujinta muuqaalka dhabta ah ee dalka ka jira iyo xaaladaha ka taagan Maxamed Cabdi Cismaan Maxamed Faradheere TV-ga caalamiga Star magaalada Muqdisho.